السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين ودود السلام بملك استادوني الدافيدة كجسجنتيهين سلام كبادي وحدوني إني دمانت برنامج كان قصة قادنو أرجي سومالي أسل كيسي هالكي أيو كيمي سيدو كلا أرجي سومالي محل لو مقلوايي وقت يدي هوري إيو وليبا مقعيدي كلا دوانا اللو يقاني سومالي دا كور انتيان لوغو يدين أرجي سومالي. haddii aad doonayso macluumaad badan oo khuseeya arrimahaas la sii soco barnaamijkeena maanta haddii alle ka yeelo. intayna barnaamijkeena maanta gudagelin waxaan ku xasuusinayaa haddii aad kanaalkeena ku cusub tahay inaad nagu soo birto si aad waxyaabo badan u faa'iido uguna ogaato. haddaynu barnaamijkeena maanta si toosa u gudagelno uguna soo horreysayna mawduuca koowaad ee ahaa ereyga Soomaali asalkiisa halkee ayuu ka yimi, waxaynu barnaamijkeena maanta ku soo qaadanaynaa 6 fikir oo laga qabo ereyga Soomaali halka uu ka soo jeedo. aynu gudagelna fikirka koowaad ayaa waxa uu yahay in ereyga Soomaali uu ka soo jeedo awow hore oo loo yaqaanay Soomaali. awowgan loo yaqaanay Soomaali ayaa waxa la sheegaa inay Soomaalidu ka soo farcantay kana soo jeedo, sidaa daraaddeedna loogu magac daray awowga loo yaqaanay Soomaali. ereyga Soomaalina uu halkaas ka soo jeedo. haddaynu intaa ku dhaafno fikirka koowaad balaynu gudagelna fikirka labaad iyo waxa uu yahay isna. fikirka labaad ayaa waxa uu yahay in ereyga Soomaali uu ka soo jeedo ereyga Carabiga ah ee Samala. ereygan Samala oo asalkiisu yahay Carabi kuna jira qaamuuska Carbeed, haddii aynu Soomaali ku micnaynana uu yahay isha ayuu ka tuuray. haddaba ereygan Samala ayaa qoraaga Barton waxa uu ka soo qaatay qaamuuska Carbeed, waxaana uu sheegay in ereygan Soomaali uu ka soo jeedo ereygaas Carabiga ah ee Samala, micnihiisuna uu yahay isha ayuu ka tuuray. haddaynu intaa bal ku dhaafna isagana fikirka labaad bal aynu gudagelna fikirka saddexaad. fikirka saddexaad ayaa waxa uu yahay in ereyga Soomaali uu ka soo jeedo ereyga Soomaal. haddaba ereygan Soomaal waxaa adeegsan jirtay Soomaalida, oo Soomaal micnihiisu waxa weeye adhiga Soomaal amaba geela Soomaal. hadba xoolahaas laga hadlayo ayaa qofka ka lagu odhan jiray Soomaal. Soomaal fariintana waxay tahay adhiga ama geela ama lo'da loo dirayo qofka Soomaal ayaa lagu leeyahay. balse dad badan ayaa tan khilaaf ka dhaliyay oo yidhi maadaama waxaana uu yahay nolol maalmeedka ee Soomaalidu isticmaali jirtay lama odhan karo magacan weyn ee Soomaali loona bixiyay Soomaalida waxa uu ka yimiba nolol maalmeedkooda hoose amaba fariimiin yaryara ay isu diri jireen sida fariintan ah Soomaal oo la yidhi ereyga Soomaaliba waxa uu ka soo jeedaa fariintan ay adeegsan jirtay Soomaalidu ee ah Soomaal. haddaynu isna intaa ku dhaafna fikirka saddexaad bal aynu gudagelna fikirka afraad iyo waxa uu yahay. fikirka afraad ayaa waxaynu odhanayaa ereyga Soomaali waxa uu ka soo jeedaa ereyga Carabiga ah ee Duumaal. Duumaal haddaba micnaheedu maxay tahay? Duumaal waa erey Carabi ah oo haddii la micneeyana noqonaya mid u saaxiib ah maal, taasoo caddaynaysa in ereygan Soomaali uu ka soo jeedo ereygan Carabiga ah ee Duumaal. dadkii fikirkan keenayna ay yidhaahdeen waxay tani caddaynaysaa hodantinnimadii iyo martisoorkii fiicnaa ay Soomaalidu lahayd, sidaa daraaddeed ereygan Duumaal ayaa uu ka yimi ereyga Soomaali oo micnihiisuna waxa weeye kuwii u saaxiibka ah hodantinimada, sida fikirkan uu sheegayo weeye. haddaynu isna ku dhaafno intaa fikirka afraad bal aynu gudagelna fikirka shanaad iyo waxa uu isnayna odhanayo. fikirka shanaad ayaa waxaynu odhanayaa ereyga Soomaali waxa uu ka soo jeedaa erey af Axmaari ahaa oo ah Somehe. Somehe oo ah micnaheedu diilaawe. haddaba ereygan ayaa Axmaaridu waxa uu bixisay Soomaalida, oo waxaa la sheegaa in ereygan Soomaali uu ka soo jeedo ereygan Axmaariga ahaa ee Somehe, micnihiisuna uu yahay diilaawe. halkaasna waxaa kaaga cad colaadii diimeed ee ka dhaxaysay Xabashida iyo Soomaalida. si ay u colaadiso Soomaalida ayay Axmaariduna ugu bixisay dadka Soomaalida ah Somehe,
oo micnaheedu tahay diilaawe. Fikirkana waxa uu sheegayaa in ereygii Soomaali uu asalkiisaba ka soo jeedo ereygan ahaa somehe. haddaynu isna intaa ku dhaafno fikirka shanaad, bal aynu gudagelno fikirka lixaad aynu ugu soo dambaysiinayno. fikirka lixaad ayaa waxaynu odhanayaa ereyga Soomaal ayaa uu ka soo jeedaa ereyga Soomaal. haddaba ereyga Soomaal halkee ayuu ka soo jeedaa? ereyga Soomaal horta waxa uu iska dul saaraya laba kelmadood oo ah so iyo maal, waxayna ka soo jeedaan lahjada mayga. haddii la micneeyana waxay noqonaysaa hilibka nool. sidaa daraaddeed waxaa la sheegay in mayga ama lahjada mayga ay ugu yeedhi jirtay Soomaalida Soomaal. sidaa daraaddeed ereyga Soomaalina uu ka soo jeedo ereyga Soomaal ee asalkiisu yahay lahjada mayga, haddii la micneeyana noqonaya hilibka nool. sidan ayuuna odhanayaa fikirka lixaadine. bal inta aynu ku xidhna mowduucii ahaa ereyga Soomaali halkee ayuu ka yimi, inuu u gudagelno mowduuceennii labaad ee barnaamijkeena. mowduuca labaad ayaa waxa uu ahaa ereyga Soomaali maxaa waqtiyadii hore iyo xilliyadii hore loo maqli waayey. haddaba waxaa loo sababeeyaa laba sababood oo waaweyn waxaa loo maqli waayey ereyga Soomaali. haddaynu u gudagalno sababta koowaad ayaa waxay tahay in ganacsatadii iman jirtay xeebaha Soomaalida aanay hore usii geli jirin dhulalka Soomaalida, maadaama ay ahaayeen dad shisheeyaha necbaa, macnaha aanay sii geli jirin dhulalka hawdka. sidaa daraaddeed ay xogagaal ugu noqon waayeen isiradii iyo dhaqamadii ay Soomaalidu lahaayeen. taasna sabab waxaa looga dhigaa in ereyga Soomaali ee Soomaalida loo bixiyey aanu faafin, maadaama ganacsatadiiba aanay isirka iyo Soomaalida iyo dhaqamadooda midnaba aanay ogeyn, kaliya intay xeebaha ka ganacsato ay iska noqon jirtay. sidaa daraaddeed waa uu faafi waayey ereyga Soomaali. intaaynu ku dhaafno fikirka koowaad aynu u gudagelno fikirka labaad. fikirka labaad ayaa ah mid iska caama, qof kastana fahmi karo. waxa weeye fikirka labaad inay Soomaalida aanay ku badnayn dadka wax qora, ay in yar oo keliyata wax qori jireen, maadaama ay dadkuna ahaayeen qaaran waxba qorin. ereyga Soomaali waa faafi waayey maadaama aan meel lagu qorin oo ereygan in yaro dada un ay yaqaaneen. sidaa daraaddeed ereygan wuu faafi waayey maadaama aan la qoraynin. wixii la qoro un ayaa meel dhigma, ee wixii aan la qorin meel ma dhigmaan. tanna waxaa loo sababeeyaa in ereyga Soomaali uu faafi waayey. haddaynu intaa ku dhaafno mowduucaas, bal aynu gudagelno mowduucaynu kusoo khatimayno barnaamijkana maanta. mowduucaynu kusoo khatimayna ayaa waxa uu yahay magacyadii loo yaqaanay Soomaalida iyo dhulalkoodaba. waxaa loo yaqaanay 5 magac oo ugu caansanaa. bal aynu gudagelno magaca koowaad. magaca koowaad ayaa waxa uu ahaa dhulkii Uduga. magaca labaad Arladii ama dhulkii Baanti. magaca saddexaad dhulkii caanaha iyo malabka. magaca afraad Berberkii Madooba. magaca shanaad gobolkii Qorfaha. 5taas magac ayaa ugu caansanaa oo loo yaqaanay Soomaalida iyo dhulalkoodaba intaan loo bixin ereygan Soomaali. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeena kuna soo khatimaya. intaas ayuuna inoogu eegyahay mowduucyadiina kala duwana aynu kusoo qaadanay barnaamijkeena maanta. waxaan mar kale ku xasuusinayaa haddii aad kanaalkan ku cusub tahay inaad nagu soo biirto si aad waxyaabo badan uga faa'iido una ogaato, sidaad imikaba u ogaatay mowduucyo badan oo khuseeyey ereyga Soomaali. waa niga Maxamed Siciid Cali Maxamed Xikmaawi. halkaad ka dheehanaysaa barnaamijkuna waa Kiska Media. waxaan kaga tegayaa salaamullaahi calaykum.